Bismillahirrahmanirrahiim. Waa channelkeygii maanta oo Shiina Bahal ka soo hadlayo. Waxaa igu dhaliyay maanta inaan soo hadlo ninkii la yiraahdo Fahad Yaasiin ayaa baryahan wuxuu qabsaday Facebook iyo channelada dhan. Maanta waxaa igu soo kiciyay in aan ka hadlo waa arrimo siyaasadeed oo maalmahan aad iyo aad uga taagnaa social media. Shiina Bahal channel markaa Shiina Cabdinuur oo ba channelkiisa maanta in aan kaga soo jawaabo arrimaha oo baryahan dhan qabsaday. Ninkii la yiraahdo Faisal Yaasiin baalkii Faisal waxaan Fahad Yaasiin waxaan ka arkay arrimo micnaha xasaasiyiin dad badan ay ka soo xawadeen arrimaha oo ka hadlay oo ahayd arrintii uu yiri gabadhii Ikraan dilkeedii arrimaheedii oo ka hadlay. Waxaa igu dhaliyay inaan jawaab maanta ka soo bixiyo waa xalay iyo habeen horeete iyo habeenkusii hore saddexda habeen oo ugu dambeysay saddexdii wareysi oo soo dhigay ayaan si qeexan ama si nidaam leh aan u dhageysanayay taasoo igu dhalisay markii inaan maanta aan jawaab falcelin maanta jawaab aan ka soo bixiyo. Midda koowaad horta Fahad waxaan leeyahay waxaad ahayd micnaha dowladda siyaasi weyn oo qaabilsan arrimaha militariga ee NISA sirdoonka dhan nabad sugidda dalka Soomaaliya. Arrintii gabadha kiiskeedii oo lagu xil saaray in aad soo saarto cadeen cad oo jawaab adigoo ku fadhiya kursigaagii hayo xilkii NISA ya jawaab ka bixi weysay oo lagu qabtay intaasoo maalmood laga sugay inaad gabadhaad arrinteeda ka hadasho. Fahad Yaasiin waxaa kale intuu rabaa inaan micnaha arrintaas jawaab oo ka bixiyo aan uga baahanahay waxa weeye Fahad wuxuu dhahay wili idaacad ma hortagin intii aniga aan xilkaas hayo dhahay wax wareysi aan ma bixin ka hor waa bixi jirtay maxaa kugu kasbay inaad micnaha markaad xilkaas fuushay aad idaacadaha ka gambato ama wareysiga ka gambato maxaa kugu qasbay waa ka jawaabteeda ka rabaa. Midda labaad saddexaad waxa weeye waxaan u arkay arrinkii daraad aad ka hadashay aad ka dhawaajisay aad ahayd yacni dilkii gabadha waxaa ka dambeeyay waxaa tiri waxaa ka dambeeyay Rooble oo ra'iisul wasaaraha ah. Ninka labaad wuxuu ahaa tiri Mahad Salaad oo ah taliyihii lagu bedelay adiga xilkaagii lagu bedelay. Minka saddexaad waxaa tiri waa nin asagana la yiraahdo kii Salebaan magaciisa maxaa la dhahaa oo aad tiri yacni saddex nin oo beel isku beel ah inaad waxaad attack sameysay aan u maleeyay yacni waxaa keenay in jawaabtan aad maanta laga soo bixiyo waxaa attacktay inay tahay beel ina attackta u maleynaya taasna micnaha jawaabteeda cad adag laga rabaa. Waxaa tiri gabadhii waxaa lagu qaaday gaari looga qaaday ayadoo u raadsatay xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqadoon ahayd gabadha gaariga Mahad Salaad lagu qaaday sidaa sheegtay Mahad Salaad gaari ku qaadaa tiri sidaa sheegtay oo lagu geeyay xaafadlii ka mid ah oo dadka taajiriinta ay degan ee xamar ka mid ah oo magaceeda aad ku sheegtay meel heblaayo. Maalinkaasi wixii ka dambeeyay waxaa tiri gabadha waa la qaaday oo waxaa la geeyay meel la yiraahdo ay degaan ay joogaan meeshan la yiraahdo Al-Shabaab oo joogo nin Mahad Salaad wiil uu adeer u yahay beel ahaan isku xigaan intaasoo eray waxaan u arkay inaad attack gareysay wax la yiraahdo beel kaligeed ah. Labaad inaad tiraahdo ra'iisul wasaarihii wadanka dhan hayay inaad tiraahdo gabadhii asaga dilay oo cadeen aad u haynin. Mid labaad waxaa kale oo jiro ninkii la yiraahdo adigii talada lagu kursigii shalay adi aad ka degtay ninkii lagu wareejiyay inaad maanta attack gareyso walaa aad iyo aad wax shay micnaha adig ku fakinayso ama ka eed baxayso ma ahan. Haddii arrinkaas aad ka dhawaajisana waxa laga rabaa wax walba adduunku waxay leeyihiin cadeen baa la iska rabaa waxa laga rabaa Mahad Salaad meesha gabadha gaariga ku qaaday oo xafiiska gabadha ay shaqada u raadsatay cadeenteedii waa la isweydiinaya wax la iskaga daba haraya ma ahan. Mahad haddii oo dambigaas oo galane xilka ma oo hay doono waxaa kale intay ra'iisul wasaare Rooble haddii arrinkaas asagana kiiskaas aad adiga ku tilmaamtay haddii ku caddaato asagana waxaa laga rabaa jawaab ka bixiyo because waa nin dhan oo wadan dhan hogaaminaya in micnaha gabadhii kiiskeedii aad adiga ku soo ogto haddii ay wax ka jiraan jawaabteeda waa laga rabaa. Fahad waxaan kale weydiinayaa
intii aad dalka aad joogtay wax wareysi amaada bixin maanta oo xilki aad ka degtay oo aad gurigaadii ka tagtay shaqadii aad ka degtay inaad inta baxdo adigoo Turki joogo aad ka hadasho oo aad tiraahdo arrinkaas aad jirto markii baalkii lidaa shaqa gabadhaas kiiskeedii uu taagnaa baaritaankeeda lagu diray waxaa tiri waa anigoo safar ah oo Djibouti maraya Djibouti waa liiga soo celshay ra'iisul wasaaraha wuxuu soo wacay taliyihii ciidanka booliska Djibouti waxaa lii qorsheeyaa tiri in aniga lii dilo waxaa soo hadlaa tiri madaxweynihii farmaajo oo aniga kiiskaygii badbaado qaran ii sameeyay iyadoo la rabo in lii shirqoolo lii dilo intaasoo arinaad ka dhawaajisay Djibouti way ka soo hadli doontaa jawaabtaas waa laga rabaa iyadana meesha adii lagugu dil rabo lagu qaarajiyay adigana waxaa laga sugayaa cadeyntii ahayd in micnaha kiiskaasi markii maxkamadda lagaga yeero shalayto waxa ay ku dhawaaqeen dowladda federaalka Soomaaliya yacni in arrintaasi dabagal lagu sameeyo cadeymo badan la soo bixiyay oo laga helay kaamirooyinkii taasi oo loo gudbinayo maxkamadda sare ee dalka markii Fahad Yaasin wuxuu dhahay hadii laga yeero maxkamadda waan hor imaan doona waana cadeey doona labaad waxaan soo kaleeto ku weydiinayaa dowladda Djibouti markii ay ka soo laabato waxaa tiri inaan shir qabto oo shirkaasi aan uga hadlo arrinkaasi waxaa ii diiday ra'iisul wasaaraha iyo arrimo ku saabsan siyaasadda xaggeeda inaan ka hadlo aan diiday maxaa kugu dhaliyay maanta adigoo Turki jooga inaad wareysi nin gaar ah oo wareysi kula yeesho aan ahayn dowlad oo aan ahayn micnaha idaacado oo dowladda u shaqeeyo private micnaha idaacad ah in inta ku yeerato aad u yeerato wareysi adigoo aan hore ugu dhiibi jirin wareysigii maanta aad bixiso oo aad tiraahdo arrimaha qaar markii lagu weydiina aad tiraahdo micnaha yacni jawaab hore uma bixi jirin wareysi hore uma bixi jirin maantana waa aan bixinayaa maxaa kugu dhali asbaabta kugu dhalisay inaad ka jawaabtaa u baahnaan lahaa walaalkay hadii qalad igu tahayna adiga waa ka jawaab kartaa waxa kale inta ku weydiinayaa Fahad waxaa tiri markii gabadha la afduubayay gaarigii lagu qaaday waqtigii la qaaday dilkeedii gabadhan waxaa ka dambeeyay 3 nin aad magacaawday 3 nin ay ka soo wada jeedaan hal beel waxaase sheegtay gaariga lagu qaaday inuu lahaa Mahad Salaad waxaadna sheegtay gabadha markii la afduubanaya ama arrinkaas oo dhacay adiga inaad safar ku maqneed sidee ku ogaatay arrinkaas sidee ku ogaatay waxaa tiri aniga waa maqnaa oo safaraan ku maqnaa safarka adigu ku maqan sidee ku ogaatay mid laba hadaa ogaatay maxaad u sheegi weysay u dhihi weysay arrinka maalinkaas oo dhacay sidaasay u dhacday ninkaas ka dambeeyay gabadha saas loo qaaday arrinka saas oo ahay waaya u dhihi weysay ii sheeg waaya u dhihi weysay waa waxa weeye wax aad iyo aad u falxun weeye mahado waxa adiga Fahado ka hadashay adigoo taliyihii sirdoonka qaranka Soomaaliya oo yacni jawaabtii aad mudnayd inaad markii aad ka hadasho adigoo shaqada iyo xilkeedii hayo Mahad Salaad wuxuu ahaa nin baarlamaanka ku jiro oo hayo xildhibaan adigoo ay dadka dhan ka baqayaan oo cid walba gurigeeda ku weerarto kaana cabsanayaan Mahad wuxuu ahaa xildhibaan ma ahayn nin ciidan wato ma ahayn nin micnaha taliye meel ka ah adiga dalka haystay oo dadku dhan ay ka baqayeen hadii aad run sheegayso Fahado oo hadalkaaga been ku jirin maxaad markaas Mahad Salaad u soo qabo weyso oo dhiiweysa arrinkan asaga sameeyay way oo dhiiweysa adigoo xilka hayo ya marka xilki laga wareejiyay oo xilki laga qaaday oo maanta baxday oo Turkiga aad tagtay inaad arrinkaas ka hadasho aad tiraahdo horeyna ugamaana hadlin markii jawaabta laga sugayayna aad ka hadli weysay maanta oo banaanka u baxday oo Turki aad tagtayna aad tiraahdo arrinka sidaan oo ahaa ma kula qumantahay hadee jawaabteeda bixi karo second aniga waxaan kale ku weydiinayaa oo kaleente waa maqnaaya tiri safaraan ku maqnaa sidee ku ogaatay arrinkaas inuu roob la ka dambeeyay second waxa kale intoo jirto maalinkii xildhibaannimada aad raadinaysay adiga gabadha waxaad sheegtay inaad u shaqo tagtay mar inay isku dayday inay MP noqoto oo ay baarlamaanka ka mid noqoto Hirshabelle mar waxaa tiri gabadha waxay isku diyaarinaysay inay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ay shaqo u raadinaysay dhowr nooc u kala hadlaysa niyahow hadalkaaga waa iskordo wax la yiraahdo af Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa wax kala hadal la yiraahdo hadal qalad ku jiro kala aad kala hadlayso gabadha hadii ay xil ka raadinaysay shaqada ra'iisul wasaaraha
maxaa markaasi shaqada ay raadinayso waxaa tiri ani isla maana shaqaynin xilna kama isa qabanin qaybta sirdoonka baalka lina Nisa gabadha hore ugu soo shaqaysay shaqada gabadha hore ugu soo shaqaysay arinta loo dilay gabadha aniga sidii aan saadaalinayo waxay tahay sir badan oo wadanka uu leeyahay inay gacanta yarta gabadha ay ku haysay idinkana aad arrimo يعني حساسية وهذا شعلين إن بنانك أصاب بحظه سيدا درتت إن معناها أرنكاس بس دي كرتان وين نقطة أرنكاس من نقطة ما أوكي وحكلو كويدي أديجو حلدان أو دونية إنا قبضو حل برلمانات إنا تهشو سيدي أديجو أتكبد بعد أو تكون رادين يسحل إنا تكوهشو فهد ياسينو إنا تقبحذي أود أدي بلويني أو تكون رادين يسي إنا نقطة حل ديبان beeleed beesha siiqaal oo reer aw xasan okay maalinkii ugu horreysay aad Beledweyne ka degto waxa ka dhacay qaraxii ugu weynaa ee Beledweyne ka dhacay ee ku dhinteen 30 iyo something qofood waxaas lagu waayay gabar aad iyo aad ugu qiimo ugu lahayd bulshada Soomaaliyeed oo gabadhaas magaceeda la yiraahdo Aamina Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogan ahlu diin ah oo ahlu taqwa ah mar walbadan ka hadasho gabadhaas si daacadna u hadasho oo taqwadeeda aad ka dareemi karto fahado masdii kartaa gabadhaas maalinka ay nolosha ee nafteedii weysay maalinkaas inay ahayd waxaas uu iigu la yaab badan fahado ka hor gabadhaas Beledweyne ayadana xildhibaan u raadinaysay maxaa kasbay tagitaankaagii iyo gabadha dhimashadeedii maxaa isku maalinta isku aadiyay jawaabteeda okay Beledweyne intaas oo sano way deganeed qarax kama dhici jirin dhibaatana kama dhici jirin maalinkii ku ugu horeysay oo qarax 35 qofood ay ku dhimato fahdo maxaa kasbay maalinkaas inay Beledweyne tagitaankaagii inay ku dhintaan intaas oo qofood oo muwaadin Soomaaliyeed ah jawaabteeda adiga laga rabaa waxa kale ku weydiiyay fahdo waxaad ahayd taliyihii Nisa sirdoonkii dhan wax walba oo dalka ka dhaca waad la socotaa waadna ogtahay waxaadna soo martay sida aad sheegtay inaad ahayd wariyihii ugu weynaa Al Jazeera tafatiri inaad noqotay East Africa oo dhan inaad qabsatay bariga Africa oo dhan 12 sano inaad u shaqeynaysay baalkii la yiraahdo Al Jazeera waayihii dambe oo adii lagu dhiibay shaqada Nisa sirdoonka dalka Soomaaliya waxaa diiday sawirkaaga hatta in laga qaado waxaa diiday in wareysi laga qaado sidee ku dhacday maanta inaad u yeerato dad private ah ee sirihii dalka aad dad qaldan ku tilmaanto oo tiraado waxa aad iska sheegto adigoo kursiga ku fadhiyana aad ka bixi weyso jawaab cad maanta waxay adiga fahado kugu tahay wallahi ma gara karo aniga kuleeto mid adiga ceeb kugu ah weeyaan hadii aad wax fahmi karto waay waxa laga rabay madal inaad qabsato dadweynaha iskugu yeerto madaxda iskugu yeerto tiraahdo arrinkan sidaan ku dhacay maalinkii laga sugay jawaabteedana 24 saac ina cadeynteeda gabadha aa keento laga sugaayay waad ka hadli weysay maanta oo dalka aad ka tagtay oo aad Turkiga joogto oo shaqadii aad iska dhiibtay inaad tiraahdo macnaha arrinka sidaan u dhacay ra'iisul wasaare baalkii Roobla dilay Mahad Salaada dilay waxa dilay wiil oo adeer u yahay oo al-shabaab ka mid ah al-shabaab waa soo hadashay shala afkaaga markaad wareysiga bixinayso oo aad lagu la hadlay afkaaga waxaad ka tiri gabadha al-shabaab ay ku maqantay al-shabaabna ay soo hadashay oo tiri al-shabaab anaga maanaan dilin gabadha maanaan dilin adigana waxaad leedahay al-shabaab aad dishay waxaad tiri si gaarana u si attack gareysay Mahad Salaadna waxaa sii tiri waxaa fuliyay arrinka Rooble waxaa dilka geystay Mahad Salaadna asiga ka dambeeyay gabadhana waxaa dilka ku fuliyana waa nin al-shabaab ka mid ah oo Mahad Salaad xigtidiisa ah wiilu adeer u yahay oo al-shabaab ka mid ah haddaan ka been sheegayo waa la qaba karaa waa arrinka adiga ka dhawaajisay oo aad tiri Mahad Salaad waa beel isku xigaan adeerkiis weeye wiilka aad tiri hadalkaas macnaha de aad naftigaaga nin weyn baa tahay waxa laga rabaa wax hadaad sheegaysid wax soconaya inaad sheegto waxaan u arkay inaad beel attack gareysay laakiin wax walba waxay leeyihiin cadeyn baa imaanayso waa adiga lagu weydiin doonaa lagu dhahaa keen cadeemihii yani ninkan inuu arrinkaas ka dambeeyay in gaariga lagu qaaday oo noocaas ahaa in gabadha dhibkaas loo geystay waxaa lahayd dadku sheegeen
kulli anigu ma hubo laakiin waxaa la sheegay in gabadha cadeymo badanaa lagu helaa la dhahay gabadha in telefonkeedii sim kaarka idaacad meel kasta oo marayo markii network oo soo qabto line kaba cabaar markuu isticmaalaba lagu hadlaba in laga bixinayo kadib markii baalkii la yiraahdo meeshas la marsiinayna leenki inta laga bixiyo la jibiyay telefonkiina la jibiyay sida aan tracking loogu sameyn gabadha loo soo raacin Fahad waxa kugu ceeb noqotay awlkii hore adigoo dhahayo in micnaha aan qariyo arimihii dalka Soomaaliya maadaama aan ahay sirdoonkii niisa ina arimahaas ka hadlo ma ogoli maanta waxa kugu kasbay ina inta idaacad private aad soo istaagto oo nin shakhsiyad ah aad wareysiga siiso aad ka diido idaacadihii dawliga ahaa markay wareysigaas kula galayna aad diido maanta wixii kugu kasbayna jawaabteeda adiga bixin doona kiiskaasina maxkamaddu waxay ballan qaaday in la furayo bisha wixii ka dambeeyo markii madaxdu ay ku dhawaaqdo ra'iisul wasaarayaasha iyo lagu dhawaaqo wasiirada lagu dhawaaqo in micnaha markaas la furi doono kiiskaasi Fahadow intii ka horeyso wixii adiga micnaha cadeen adiga hubto part 1 waa fiirsaday part 2 waa fiirsaday part 3 waa fiirsaday waxa tiri aqoontaydu waxay ahayd micnaha nin bara dugsi waxaan ku soo barbaaray ina anigoo baranayo micnaha cilmi culunta kadibna aan noqotay macallin dugsiyeed kadibna aad ka soo baxday micnaha culunta dugsiga marka ka soo baxday macallin dugsi aad noqotay kadibna aad noqotay wariye kadibna aad noqotay yacni tafatiraha idaacadda aad tiri magaceedii sheeg ka noqotay ururkii al-aqwalul muslimiin haddana aad noqotay tafatirihii idaacadda al-jazeera ku gaartay heerkaas aqoonteeda anigu ma garanayo meesha aad aqoontaas kala timid waa arrinka adii aad sheegtay waxaan aan ku daraayo ma ahan second waxaa noqotay East Africa oo dhan ninka ugu sareeyay Al Jazeera ninka ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ka shaqeeya Al Jazeera aad noqotay wareysigaagana micnaha sida u bixisay sidaas oo ahaa waa lagaaga horeeyay horta erigaas oo tababarna ku sheegtay waxa kaaga horeeyay Maxamed Hebel Cadow sanadka uu shaqo bilaabay wuxuu ku shaqeynayay 2004 kii uu ka shaqeynayay idaacadda Al Jazeera adiga 12 sanad ka shaqeynaysay waxa ku xigay wiil liiraada Maxamed Hebel Maxamed nin liiraado oo tafatiraha dhan Al Jazeera kaalinta koobaad in the wall qabsado ahaa oo arin kasto oo Al Jazeera ay sameynayso ninka ay soo mareysay arinkaas ninkaas oo ahaa walagaaga horeeyay waxa tiri qofkii Soomaaliya ugu horeeyay anigoo ahaa taas warta waa kaab waa been waxaad sheegtay waa been taas waa been ka ay noqotay Fahad أنا waxaan ku dhihi lahaa shakhsiyaadka gaarka ah oo aad siinaysid micnaha shalay waxaad dhahday waxaan qarinayaa arrimihii xasaasiga ah ee dalka Soomaaliya aan qarinayaa hatiri isrihi maxaa kugu kasbay inaa maanta adiga idaacad gaara oo nin shakhsi oo leeyahay intaad u yeerato aad kaga hadasho arrintaasi wallahi ani waxaan u garan kara ma ahan Fahad waxaan ku dhihi lahaa meelahaas oo kale arrintaas oo kale waxa waay marada kaaga dhacdo hadii wax ku dhiman yihiin waxa la yiri ninkii dhareerkiisu socda walaalkiisa u dhareer qariye inaader waxa la yiri Soomaali waxay tiraahdaa hadii foolku ay ku haysaa la yiri macnaha xagasho kaaga ma rabto adeer eed aday kugu cadahay inaad garbaxdo oo tira anigu kiiska ma galan ragii gala waa kuwaana cadeyntii waatana ragnimo kugu tahay laakiin waxa adigu xoogaa yar daliil kugu noqonayso daliil yar kugu ah maanta shalay ninkii shaqadaadii adiga haysi lagu bedelay inaad tiraahdo hebela maanta ka dambeeyay it's not impossible brother it's not impossible adigoo xilka haysid yaa laga rabay inaad tiraahdo arrinkan sidan u dhacay baad dhiiweysay maanta ninkii lagu bedelay hadaa tiraahdo ka waran hebela dilay ninkan shalay baar xildhibaan loo ahaa adaa ka sareeyo taliyihii dhan niisa isirdoonka nabad sugidda ee dalka Soomaaliya adiga ahaa cid aragtaa weerar kartay gurigooda tay kartay xiri kartay wax hartu ku sameey kartay maanta aad turki joogtid oo shaqadii laga bedel ninkii lagu bedelay inaad tiraahdo gabadhii asagaa dilay ra'iisul wasaarihii dalkana aad tiraahdo asagaas dhilkan ka dambeeyay فدفعه واحد معناها ضد صومالية الممنهين واحد ضد وشيء كرت الله شيء إن هذا الواحد كارنا جواب عاد ضد كان أتوقع عكرت ومدى صومالي ميلو بإيش وقته أتوقع عكرت على جار باي بل ده كيس كاسم بحو مرايا مال شيء وروح ماد حساسيد وروح ماد ومانت مرايا ضد كينا وقت وجد بدت كنا صومالي وحكوا تقنا هل ورها ده أشياء تبى
dee dibnaha ma dhaafo u dhaafaayo waxaad maraysaa maanta wuxuu marayaa meel walba in qof kastaba si qabiileed oo u fasirto si arrin kasta u fasirto difaacdu jawaabteedii iyo hadalladaas adiga laga doonayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan dhihi lahaa caafimaad iyo nolol wacan ilaahay inuu ku bashbash iyo barwaaqo ku noolaataan waa walaalkiin Shiine Cabdi Nuur oo leh soo dhawaada channelku waa channelkiini waa inaad soo dhaweysaan oo like subscribe iyo share wax walba ku qabataan waayaan dambana channelka zaid uma kala kicisaan waa in fahmaan maadaama aniga aan ka mashquulay idinkana waa ma garanayo isbuucyada waxaan arkaa 76 uu dhaafi laayahay channelka waa inaad soo qabataan insha Allah biidnillaahi kariim waa Shiine Cabdi Nuur oo leh Shiine Bahal welcome sharp insha Allah is arag dambe part 2 dambe ugu soo hadli doona arrimaha xasaasiga arrimihii loo gudbiyay sirdoonka oo la helay sirarkii ugu dambeeyay oo lagu helay macnaha hadal lagu hadlay oo la duubay taasoo maxkamadda loo gudbi doona arrinkaas oo waxaan fresh ahaan hayay marka intaas kaliya dadka dadweynaha inaan la jeclaysto inaan la wadaago marka insha Allah biidnillaahi kariim next week hadii Ilaahay raado I will talk insha Allah Shiine Bahal sharp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.